Maryam waxay ahayd inanta noogu weyn xaafadda, aabahayna aad buu u jeclaa. Mar kasta wuxuu kula dardaarmi jiray inay u sheegto wax kastoo ka dhacay xaafadda. Sidoo kale, iyadu waxay ku dadaali jirtay inay aabba u sheegto wax kastoo ka dhaca xaafadda. Ha yaraadaan ama ha weynaadaane, xaafadda waxay ka ahaan jirtay dhegedhegeysada xaafadda. Yacni soo ma jiro xaafadda qof mar kasta dhegedhegeeya doona waxa dhacay. Saas bay ahayd walaashii Maryamna. Aabahayna wuxuu ahaa nin diin leh, aad u adag xagga diinta iyo xagga cilmiga aad ugu adag. Laakiin isagana waxaa ku dhacday xanuunka loo yaqaano bakhayltinimada. Wuxuu ahaa oday aad u gacan adag, aad u kantarool badan. Hooyadii wuxuu ka mamnuuci jiray meel kastoo israado tag, isagoo u sheegi jiray in ay u sheegto meel kastoo tegayso iyo xaalad kastoo ku sugan tahay. Marka qaar waxaa dhici jirtay inay hooyaday cabsi ay isaga ka qabto awgii ay dhuudhuuman jirtay, meeshii tegayso isu dhuuman jirtay si aanu ugu qaylinin hadhow markay soo noqoto. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبان إن سلام يا دنيارو وحن رجينا إن دمانتين وضعف ما قبطان وحن كعد سنة إن أتشانل كنو سبسكرايب جريسو موقال كنو لايك جريسو aad baad mahadsan tahay. Aynu gudagalno sheekadeena maanta waxay inooga sheekeynaysaa gabadh lagu magacaabo Sahra. Waxaanay ka sheekeynaysaa qisada qoyskeeda iyo walaasheed iyo waxa kala qabsaday. Haddaba waxay tiri maalmaha kamida ayay ayeeyday xanuunsatay. Ayeeyday hooyo ayaa xanuunsatay. Hooyadii waxay go'aansatay in ay soo booqato si xaaladdu ogaato sida wax u dhaceen, si aabahay kama fasax qaadan. Waayo arrinku wuxuu ahaa arrin degdeg ah. Waa ay tagtay, way soo booqatay, arrinkeena soo dhacay way soo ogaatay, gurigeena ku soo noqon. Marka in muddo maqnayd ayay timid intaanu aabba iman in yar ka hor. Aabahayna ma uusan ogaanin, laakiin walaashay Maryam oo aabahay aad ugu dardaari jiray inay u sheegto wax kastoo xaafadda ka dhacay ayaa waxay go'aansatay inay aabahay u sheegto in hooyaday baxday. Arrinkiina way u sheegtay walaashay Maryam. Aabahay aad buu u xanaaqay, waxaanu aad u canaantay. Marka dambe gacan gaarsiiyay oo aad u garaacay hooyaday aad bay uga xumaatay. Halkaas baa waxa ka bilaabmay cuqdadii iyo colaadii hooyaday iyo walaashay Maryam. Haddaba iyadoo saa ay tahay ay hooyaday cuqdadii u hayso walaashay Maryam ayaa waxa dhacday arrin kale. Waxa guursaday abtigay hooyaday la dhashay. Hooyadayna waxay go'aansatay inay la soo dabaaldegto oo ay tagto arooska abtigay. Waxay aabahay ka codsatay inuu u ogolaado si ay u soo dabaaldegto ay ugala soo qayb qaadato farxadda walaalkeed. Waxa uu ku yiri waan ku ogolaanayaa laakiin hal shardi baa jirta. Shardigaasina waxa weeyaan inaad arooska ka jaasin oo aanay soo gaadhin warbixin ah inaad aroos ka jaastay ama aad ka ciyaartay. Waayibay hooyadayna ku tiri sidii hooyaday ku baxday. Arooskiina way tagtay, waxaana ka xisatay aniga iyo walaashay Maryam. Arooskii uu socday waa la dabaaldegayay. Markuu waqtigu meel dhexaad yahay ayay habaryartay oo hooyada la dhalatay farxaddii ay soo jiiday hooyaday. Waxaanay ku qasabtay inay jaasto ay aroos ka ciyaarto inkastayna hooyaday doonahayn. Laakiin miskiintu farxaddii baa qaaday, arooskiina way ka jaastay, si fiicanna way u ciyaartay. Waa ay faraxday. Walaalkeedna waxay dareensiisay inay ku faraxsan tahay arooska iyo guurka uu guursaday. Wax kasta iska caadi bay ahaayeen ilaa ay gurigaan ku soo noqonnay. Haddaba walaashay Maryam oo afka laga falay ayaabay waxay u sheegtay aabahay inay hooyo jaastay ciyaarto arooska si fiican uga soo jaastay. Aabahay markuu arrinkii maqlay aad buu u xanaaqay. Hooyadayna aad buu u garaacay ilaa uu heer hooyaday kaga dhiijiyay. Dhiigina uu marmaray sariirtii ay hooyaday ku jiiftay markii la dilayay. Haddaba si lama filaana habeenada kamida ayay hooyaday u soo baxday si u soo kiciso aabahay oo hurday. Waxaa dhacay arrin lama filaan ah. Markii ay tagtay hooyaday sariirtii uu aabahay hurday, waxay la kulantay aabahay oo faali ku dhacay isagoo meyd ahna sariirta saaran. Dhammaantay waanu wada murugoonnay, waanu oynay. Geerida aabahay waxay noo saamaysay si aad u xun. Meydkii waxa loogu yeedhay culimada, waa ay meydheen, si fiicanna waa loo aasay. Aabahay Allah u naxariisto. Halkaas waxaa ku dhammaatay dhibaatadii iyo hadimadii uu ku jirtay hooyaday. Waxaana bilaabmay dhibaatadii walaashay Maryam. Geeridii aabahay wii kadib waxaaba la moodaa inay hooyaday u soo kala jeedsatay aargoosi iyo inay ka aargoosato walaashay Maryam wixii ay ku sameynaysay. Hooyaday waxay uga aargoosatay walaashay Maryam sidii ugu darnayd ee qof uga aargoosan lahaa qof cadowgiisa ah. Qodobkii koowaad hooyaday samaysay waxa uu ahaa in ay walaashay Maryam eriday oo ay ka eriday qolkii hooyaday iyo Maryam waxay wada seexan jireen hal qol. Marka talaabadii koowaad hooyaday qaado waxay ahayd
inay qolkii ka erido walaashay. sidoo kale waxay samaysay inay dharkeedii oo dhan ay ku daadiso qashinka marka laga reebo hal go oo habeenkii hooyad ay hiwato iyo xijaabkii yar ay xidhanaysay. marka labadaas shay laga reebo dhammaan dharkii walaashay Maryam waxaa lagu daray qashinka. walaashay Maryam waxay isku dayday in badan inay istifaacdo oo ay hooyadii la doodo. waxay isku dayday inay garteeda dhacsato, laakiin waxaas waxay haayeen weel gunta ka daloola oo waxba kama aysan taraynin hooyadii iyo dhibaatada ay ku wado walaashay Maryam. hooyadii waxay ku dhiirigelin jirtay walaaladayda wiilasha ah inay dhakhtarka uga doonaan dawadii waalida. sidaa awgeed hooyadii waxay ku ciyaartay maskaxdii walaashay Maryam iyadoo la gashay dagaal kasta oo ay uga dhigayso qof waalan. kiniin bay siinaysaa, way hadal bay ku hadimeynaysaa, cuntada kiniin ugu daraysaa, qaab kasta u dhibaateyn karto walaashay Maryam ay bilowday. waxay u sheegi jirtay walaaladayga yaryar ee innimada ah inay jirdilaan, iyadoo walaashay Maryam la qabto ee hooyadii qabato ay la dili jiray. feedhka ka budka soo qaadaya, ka usha soo qaadaya ay hooyadina u hayso si ay u dilaan. hooyadii waxay ku oran jirtay walaashay Maryam, afdheeray aad baad u afdheeray markuu aabbahaa noolaaye, imika maxaad samayni? aabbahaa u dhintaye maxaad samayni? meelaha u gaadhsiida afkii dheera ee aad lahayd markuu aabbahaa noolaa, imika meelaha u gaadhsiiyo. walaashay Maryam aad bay u ooyi jirtay, waxay ka murugoon jirtay dhimashadii aabbahay, waayo iyada si gaar ah buu u saameeyey. haddaba hooyadii waxay isku beddeshay gabadhii 50 jirka ahayd ee 20 jirka iska dhigtay, waayo waxay la hadli jirtay rag kala duwan, ay la sheekaysan jirtay, ay raaci jirtay, la faakaysan jirtay oo la dalxiisi jirtay. habeenkii waxay iman jirtay xilli aad u dambeeya iyadoo qaaday dhalinyarnimo. dhalinyar maaha, laakiin deebe maadaama dhalinyar dib ugu soo noqotay taas samayn jirtay, dhalinyartii raaci jirtay, way faakaysan jirtay. walaashay Maryamna waxay noqotay mid dhaga adag, hooyadii ku caasi ah. waxay ku oran jirtay hadalle aan u qalmin hooyaday ay ku oran jirtay, way aflagaadeen jirtay. hooyaday iyo walaalahayna mar kasta waxay isku dayi jireen inay garaacaan, inay cuntada ka jaraan, inay waxyeeleeyaan ay isku dayi jireen. maalmaha ka mid ah hooyadii waxay go'aansatay inay nolosha ku aasto walaashay Maryam. waxay u sheegtay mid ka mid ah walaaladay inuu qodo god aad u dheer oo xaafaddiisa laga qodayo si ay ugu aastaan walaashay. godkiiba qodistiisa la bilaabay. markii godkii in muddo ah la qodayay ee arrinkii lagu guda jiray ayay hooyaday iyo walaaladay waxay ka cabsadeen in la ciqaabo oo arrinka dowladdu ogaato oo jaarku ogaadaan. sidii buu Ilaahay naxariistiisa qalbigooda ugu soo riday cabsiyo godkii iska daayeen. maalinkaas way badbaaday walaashay Maryam. haddaba wuxuu waqtigu socdaba wuxuu waayuhu ordaba. walaashay maalinku aabbahay dhimanay waxay ahayd 20 jir ay dhibaatada ku bilaabantay. maantana waxay maraysaa 55 jir, macnaheedu 35 sano oo dhibaato ah oo ay hooyadii iyo walaashay ficiltamayaan ay ka soo wareegtay. hooyadii waxay noqotay qof duq ah oo aad u weyn, walaashay laftarkeedu qof weyn bay noqotay, laakiinse caqligoodii ma korin, weli sidii bay isku haysteen. maalin kastoona soo galo hooyadii iyo walaashay waxaan arki jiray iyagoo is haysta. walaashay waxay ku celcelin jirtay arrin ah, waxay oran jirtay yaa Mansuurow ii soo gargaar, yaa Mansuurow ii soo gargaar. Mansuurkan la sheegay maanu garan jirin, waan maqli jirnay. walaashay oran jirtay Mansuurow ii soo gargaar, Mansuurow ii soo gargaar, laakiin meel ka socdo maanu garanaynin. iyadoo ku celcelinaysa Mansuurow iiga soo gargaar, hooyadan faajirada ah, qofkan faajirada ah iiga soo gargaar Mansuurow ay ku celcelin jirtay markasta. haddaba markay isla weynaadeen ee labadiiba noqdeen dad da ah, maalmaha ka mid ah hooyaday oo suuqa ka soo noqotay oo qof da ah ayaa waxay ka soo daadageysay kaabada. kadib way ka dhacday, dhabarkii wax ka noqotay, waxay noqotay qof sariiryaala oo aan kici karaynin. aniguna reer baan yeesho xaafaddu waan ka wareegay. marka waxaa isku soo hadhay hooyaday iyo Maryam oo keliyata iyo gabadh shaqaysa. hooyaday markii noqotay qof sariiryaala oo sariirta jiifa waxaan u adeegi jirtay gabadh shaqaale ah. walaashay Maryamna meeshaasi kula noolayd. maalmaha ka mid ah anoo gurigeyga iska jooga ay waxay soo garaacay lambar aan garanaynin. waan yaabay, waan qabtay lambarkii. waxay igala hadlaysaba hooyaday oo aad u qaylinaysa oo naxsan. waxaan weydiiyey hooy maxaa kugu dhacay? waxay tiri ii soo carar, ii soo degdeg. guriga waxa igu soo galay mas weyn baa igu soo galay oo aad u weyn. waan baqanayaa, waanu i cunayaa ee dhaqsiga soo gaadhay. durbadiiba waxaan tagay gurigii hooyaday, waanan u tegay gurigii baan baadhay, wax mas ah maanan ku arkin. hooyo weydiiyey ku hooy waxan waa riya uun. waxay igu jawaabtay mabaan seexan hooye san ku arkay mas riya asan ugu arkayba mas riya ah, wax mas ahna maanan arkin. si kasta waan yeelo qolkii hooyaday ku jirtay. waxaanan is yidhi anigu waa cabsi xagga hooyadayuuna ah. markaan arkay xaaladda hooyaday ku jirto iyo sida u dhaqmayso
waxa khasab igu noqotay inaan hooyadii la joogo ilaa week ba la joogo hooyadii waxaan ku arkay hooyadii dhacdooyin naxdin leh qof dilaya qof hanjabaya qof way ka qaylinaysaa ilaa hooyada qabo hooyo waxay kani hooy marka aad u qaylinaysaa hooyadii marka qaar say u jiifto ayaa sirta laga soo tuuraya waxaan arki jiray hooyada sirta ka soo dhacdayo dibadda taalo qaylinaysa oo la hooyiga qabo wixii inta ka dambeeyay hooyadii xaalada ku soo noqonayay haddaba maalmaha kamida oo hooyadii ku jirtay xaalad kamida xaaladaheeda ugu fiicnayd oo aanu si fiican u sheekaysanayno hooyadii cabiso qaxwe ay cabisay hooyadii waxay weyday dhinaceeda waxay ka weyday furihii bay dayday furahan waxa weeyaan furihii qolka talaagada oo hooyadii talaagada waxa ugu jiray cuntooyin iyo wax iyada u khaasa si ayna walaasha Maryam ugu cunin maadaama gurigooda nool yihiin ay waxay samaysay inay qolkaas soo quflato furahan iyadoo haysato daba furihii bay weyday si ka soo dayday markii dambe way xanaaqday aad bay xanaaqday waxaan u malaysay in furaha qaaday walaashay Maryam bay aad ugu qaylisay waa cayday adaa furihii qaaday toogayay alaabtaydii keen aad bay xanaaqday halkana Maryam ba ka dhaaranaysa hooyo wallahi maan arkin hooyo wallahi maxaad igu haystaa aniga maan arkin wallahi hooyo ay ku qaylinaysaa haddaba hooyadii waxay amartay gabadha shaqaalaheeda ku tiri ii soo jiid islaantan ii soo jiid hooyadii sirta kama kici karto laakiin gabadhii shaqaalaheeda waxay ku amartay inay soo jiido gabadha shaqaalan waxay ku khasmanaatay inay soo jiido oo ay hooyadii gacanta ka soo galiso maadaama in yar ku jireen gabadha shaqaalan ma diidi karto oo wala eriya iyadoo hooyadii amarkeeda diido meeshiina Maryamna waxa kama aha marka waxay ku khasmanaatay in Maryam soo qabato soo jiido ilaa ay hooyadii gacanta soo galiso hooyadii waa ay garaacday waxay ku dhufan kartay ku dhufatay tii shaqaalan waxay leedahay ku dhufo tii shaqaalan ku dhufanaysa ilaa aanu soo kala gaaray aanu soo cararay aan kala qabtay markii aan ka qabtay aan xoogay iska fadhinay hooyana dajiyay ayaa waxa kacday walaashay Maryam 30 daqiiqo kadib iyadoo markii naga maqnay 30 daqiiqo kadib bay noo soo noqotay iyadoo gacanta waxay ku sidaa kaawiyad weyn oo bari hore aanu lahaan jirnay kaawiyadii soo qaaday hooyadii madaxa kaga dhufatay kaawiyad aad culus weeyaan hooyadii ilaa madaxeedu ka barmay dhiigii ka soo daasina anoo hooyo ag fadhiyo dhabtaydii buuxiyay waaba anigii ku jira sida riyo cabsi ah dhiig soo daadanayo dhiigga wajiga ku yaala ka hooyadii madaxeedu kala bara walaashay Maryam oo la baashi ku dhufatay waaba qaab riyo ah hooyadii isla markiiba way dhimatay Allahu naxariisto markiiba hooyadii way dhimatay bartiba nafta ka baxday meeshii booliskii baa loo wacay booliskii soo gaaray iyo dabaarayaashii arrinku soo jiray ogaadeen walaashay maadaama maskaxda dhameystirnayn Maryam waxa loo qaaday xarunta caafimaadka hooyadiina la soo aasay Allahu naxariisto gabadhaas waxay tiri ilaa imika walaashay Maryam wax ku jirta xarunta waalida marka sheekadan waxaanu ka fahmaynaa imika caqabadahaas oo dhan wax abuuray odaygii xaafad dhalay adkaantiisa ayaa wuxuu isku diray inan iyo hooyadii sheekadan taas noogu dhan tahay waxaan ka codsanayaa inaad channel noo subscribe garayso muuqaalka noo like garayso aad baad mahadsan tahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.